Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Geedka aadka looga jecel yahay caalamka oo dhan ee xashiishatul malaak ayaa ah geed qof kasta oo yaqaana qiimo gaar ah u leh, waana geedka qaniga ku ah faytamiin B12 iyo macdanta xadiidka iyo sanag. Waana geedka ay dhakhaatiirtii cilmi baadhista ku sameeyay ku sheegeen inuu dawada koowaad u yahay bakteeriyada iyo jeermiska noocyadooda kala duwan. Sidoo kalena waa geedka khubarada daraasadda ku samaysay ay ku sheegeen inuu si cajiib ah uga shaqaysiiyo dhiigga wadnaha taga, qayb weyna ka qaata caafimaad qabka wadnaha, kana hortago cilladaha ku dhaca wadnaha. Waana geedka ay sheegeen inuu waqti kooban ku soo celiyo dhiig yaraanta ku dhacda dumarka. Waana geedka ay sheegeen inuu dumarka siiyo hormoonnada ay u baahan yihiin, gaar ahaan xilliga ay uurka leeyihiin. Sidoo kalena waa geedka ay sheegeen inuu meesha ka saaro xanuunada ku dhaca maqaarka, waana marka jirridiisa la tumo kadibna shaaha lagu darsado. Sidoo kalena waa geedka ay sheegeen inay ku jiraan laba maado oo muhiim u ah daaweynta gaastariga, isla markaana si cajiib ah u nadiifiya caloosha. Waana geedka ay sheegeen inuu dawo biyo kama dhibcaan u yahay xanuunka dhanjafka, waana marka jirridiisa la tumo ee shaaha lagu darsado. Isla markaana waa geedka ay sheegeen inuu dawada wanaagsan u yahay xanuunka rheumatism-ka, waana geedka ay sheegeen inuu muhiim u yahay caafimaad qabka beerka. Isla sidaasoo kalena waa geedka ay sheegeen inuu meesha ka saaro kaliya xanuunka, waana geedka ay sheegeen inuu caloosha ka nadiifiyo noocyada kala duwan ee gooryaanka. Waana geed waxtarkiisa ugu badani uu ku jiro in jirridiisa la tumo kadibna lagu darsado cabitaanada.